بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta insha Allah taala halkan kala hadlayaa ummadda Soomaaliyeed ee walaalahay ah meel kasta oo joogan wadanka Soomaaliya gudihiisa iyo dabadiisa meel kasta oo joogan aan kala hadlayaa kelmadan kala hadlayaa aan u jeeda maanta waxa weeye in aan la hadlo bal waxaan qaadka la yiraahdo ee mukhadaraadka ee Soomaali imtixaanka ku noqday ee lacagtii Soomaali soo galayso dhan wada qaatay ee reermigii ku baabay ee beerleydii ku baabaaday ee dhalinyaradii ku baabaaday ee maxay ahaanay yana lacag wixii soo galayeen halka ku baxayo xitaa dhirteeni loo wada gooyay la gubay ee xoolihii ku dhamaadeen qaadkaasi ayaan maanta rabaa inaan bal cidii damiirkeedu nool yahay iyo cidii maaragtay u baahan daweynba aan kelmad u jeediyo walaalahay waxa weeye waxaan maaragtay usbuucan la socday oo aad la socday dadkii qaadka miirooga meesha laga keenayay Kenya laga keenayay khaasan gobolka miiro la yiraahdo ee uu ka baxo oo aad u cabaadaya oo le maaragtay yana gaajana leenaysa oo waxaan iskuuladii carruurta ka bixino ma haysano oo jaadkii naga iibsanayay baa la joojiyay Soomaaliya hal maartay hal la hadlo hanoo fasaxo qaadkaas ayaa maartay dhageysanayay iyadoo madaxweynaha xitaa Kenya oo isnaga laftiis iyo dawladdiisu ay ka hadleen runtii geedkani qaadka la leeyahay ee halka maartay laga keenayo oo ay yiraahdeen maalin walba 1 milyan baan xamar ka soo qaadi jirnay xamar gudaheedo kaliya 1 milyan oo dollar ayaan ka naga soo gali jiray oo inta soo diyaaradood 20 miya ma dhowriyo 20 baan ay wadanka keenayeen ayaa maartay maanta aad loo dareemay inta labada bilood maartay balan corona la yiraahdo jiro ee dawladda xamar ay joojisay inkastoo si kontrabaaya oo ku soo galo oo dhibaato badan laga kulmay waxaan idin sheegay walaalayaalow hadduu qaadkan yahay wax khayr qaba oo uu yahay ama cunto loo baahan yahay oo gaajo iyo haraad la iskaga reebay hadduu yahay dawo la cunayo oo maartay la isku daweynayo hadduu wax bini aadamka caam ahaan anfaca hadduu yahay de wadamada kale jaarka loo dhoofin lahaa ee Kenya la jaarka ah sida maartay wadanka Tanzania la yiraahdo Uganda Ethiopia Sudan iyo wadamada kale ka sii dambeeya ayaa loo dhoofin lahaa limaada maxaa Soomaaliya loogu soo dhoofinaya cid kale oo cunaysan jirin sababtoo ah haddii cid kale oo cunaysa jirto u dhoofin haday jirto may cabaadeen oo dadkaasi dhibaatada ay hadda tirsanayaan de daroogada inagu ba afkeena ku cunna dollarkeena bixina dollarkeena wallahi waxaan maleeyahay xamar marka halkii maalin ba laga qaado 1 milyan waa bishii waa 30 milyan sanadkiina waa 360 milyan waxaan la yaabanahay maalin dhow baan wasaaradda ka maqlay wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha ka maqlay lagu noqdo maartaanay miisaaniyadii dawladda federaalka ah oo 600 milyan lagu qiyaasay oo maartay yana dalkii la yiri hadana lama keeni karayo bal waxaad u fiirsataan walaalahayaga muslimka ee Soomaaliyeed 360 milyan markay xamar oo kaliya ka baxdo imisa ka baxaysa Hargeysa imisa ka baxaysa Garowe imisa Baydhabo ka baxaysa imisa maartaanay gaalkacyo ka baxaysa imisa Kismaayo ka baxaysa caasimadaheenni iyo maartay wadankeena imisa ka baxaysa waxay noqonaysaa marka saa lagu xisaabto de billions bay noqonaysaa maaha 360 milyan oo kaliya billions bay noqonaysaa ama Ethiopia ha tagto lacagtaas dollarkii ama ha tagto Kenya ha tagtay waxa weeye haddii aan inagu nahay xoolo daaq loo dhigo oo daaqaas ku raalli noo dhigan aan lacagteeni bixinayno oo wax la wixii na soo galay aan bixinayno waxa weeyaan de caydnimo ka bixi mayno maartaanay dulinimana ka bixi mayno harumarna gaari mayno dawladdeennuna macna yeelan mayso waxa la yaab leh
in maartay wadankan Soomaaliland in aanu hadda joogo in kolkii ay rabaan la joojay bilowgeedii haddana la xamili waayo maartay ay xamili weyday dawladii inay xitaa ciidii gaarsiiso joojintaas oo maartay rabadaantiyo 22 markiiba maartay ama 23 la fasaxay la hawla wala quwwata illa billah waxa weeye markaas haddii sidaa tahay qaadkiisa yahay oo waxaan cudur hayna wala soo gelinaynin oo wax dhaqaale xumaan la soo gelinaynin waxa weyn inaan fikirno damiir nool lagu fikiro laakiin waxa sheegay qofku hadduu go'aan gaaro oo damiirkiisa aw maartaanay isagu is xukumo ilaahay markaa uu daweynaya ilaahay wuxuu quraan ku yiri bal al insanu ala nafsihi basiratun walaw alqa ma'adhira qofku markuu isagu isla hadlayo runtu isku sheegaaye been isku ma sheego xitaa dad kale ba cudur daar haw sheego laakiin naftiisa been u sheegi maayo waxaan idin sheegayaa walaalahayga muslimka ee Soomaaliyeed meel kasta oo joogno Soomaali haddaan hay'adkaas wixii ni qabe in laga joogsado oo qaadka laga joogsado ayaanu idin soo tabinay maanta dawladda maanta xali hadlaysay maartaanay aan dhageysanayay yaa kuwa cabanayay waxyagii waa la iibsan waayay dawladda Soomaaliyeed waxay xalay tiri qaadka wax dhiba ma ahina wax kale hadina laga soo galaynin waa inaan saa ku joojinaa xitaa marka corona iyo kala xiranku aw baabao waa inaan qaadka joojinaa raacinaa bay yiraahdeen anu taasaan ku taageeri lahaa dawladdaas oo aan aad iyo aad ugu boorin lahaa laakiin maxay ku xiran tahay dadka Soomaaliyeed oo damiir yeesha dadka Soomaaliyeed oo damiir yeesha oo qofku damiirkiisa oo kaliya ayaa xukumi kare aw isagu damiirkiisa isku xukumo iska daaya qaadka walaalahay waxa weeyaan bal waxaad u fiirsataan korka habeenkii aw ka baxay maartaanay lacagta jaadku ay wajahla ka baxayso de baabuur dollar sida oo buuxda oo mid walba ugu yaraan 100 kun sido ama 200 kun sido intaasoo 100 kun oo Hargeysa iyo Booram iyo Gabile iyo ilaa iyo Barbar laga soo guray aw iyo ilaa Cergaabo iyo Laascaanood ayaa halka la mariyay habeenkii waxa la soo bedelayaa isagii oo haddana maartay ajilkaas cuntadii aan cunaynay baan xitaa yaan maartay yaa jaad ka qaalisanaaday oo caruurteeni baa maartay iskuulay tagila oo laga bixin laayahay oo buugi loo iibin laayahay oo birigoodi la siin laayahay oo dawadoodi la siin laayahay oo dumarkii dayacan yihiin waxa weeyaan markaas anu waxaan leeyahay qofkii fikiraya ee muslimka Soomaaliyeed meel kastaba haddaan joogno way dibadda waxaan ku darayaa isagoo maartaan la ridqay oo sidii xinnaha laga dhigay ayaan ogahay in la geeyo America iyo Canada iyo Europe oo dhan la geeyo oo maartay murqaacad qofka laga iibiyo $20 murqaacad yar loo darayo ayaa jirta oo dibadna saa lagu cunayo waxa weeye ibtilaadina haysataay waxa weeyaan waa ibtila Soomaalida ku gaar ah oo ku gaar ah waxana weeyaan dhaqaaleena hadduu saa ku socdo de weligeed meel gaari meeno anu waxaan leeyahay yaana jaadka aan iska joojino qof walba isagu hays xukumo waxa weeyaan dhibaato yaan u haysaa xaq bulsho xaq akhlaaqda xaq dhaqaalaha xaq caafimaadka xaq diinta xaq walba midna ma inoogu roono siyaasiyana waa nagu haystaa oo waxa weeyaan geed la nagu qabsaday oo aad moodo in la nagu xukumo ila nagu xukumo ayaad moodaa geed la nagu xukumay oo qasab la naga dhigay oo haddaan deynana la qabsanayo weeye marka waxaan leeyahay anu maanta halkan soo fadhiistay dawladda xamar joogtay mar haday leedahay waan qaadkii waan iska joojinaynaa oo sida on maanta corona ugu joojinay baan asal ahaanba u joojinaynaa wallahi Soomaali maartay maalintaas nafis meedaan ogeyn berigi maxaakimtu xukumi jirtay xamar 6 bilood bay hayde 6 bilood markay qaadkii iska joojiyeen waxba joojiyeen dadkii xitaa qaadka iibin jiray waa kuwii uu sameeyay meherada kale ee la yiri 6 bilood ee 60 sanadood ka faa'iido badnay 6 sano maartay 6 bilood ee 60 sanadood waa 60kii ay soo jirtay Soomaalida waqtigaas ka faa'iido badnayd bal waxaan maanta halka anigu leeyahay oo idin soo tabinaya anigoo ducana idin ku soo daraya oo leeyahay Ilaahay khayrka hana waafajiye wadankeena iyo danteena waafajiye inaan qaadka ka tashano oo Soomaali meel kasta ay joogto ay ka tashato reer baadiya maanta inooma noolo xoolo inooma joogan uu bayb wala dhameeyay
maaragtay wax geedkii waa la shiday dhuxul baa laga wada dhigay gebi waa la cunay xataa imika anagu waxaan arkaa marka waxaan leeyahay geedka qaadka la yidhaahdo Kenya waxa maanta damac ay naga haysaa waxa weeye waxay og yihiin oy gaadheen inaan yaga daroogadoodii ku fooganahay oo ku foorarno markaas ay badeeni damceen oo dhulkeeni jubooyinkii oo dhan damceen oo gadad damceen oo maanta ku haystaan dawladii Soomaaliyeed dhulkeeni nagu haystaa Ethiopia Kenya nagu haystaa badiya biriba ay nagu haysato waxa weeyaan dad noqono weeyaan dareen yeelano waxaan iska sugayaa jawaab oranaysa shaasan oo ama maartay waad wareersanta iska aamus ama siyaartaan waan ka tashanayna taasan jawaab iska sugaya ya ikhwaani wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in